بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام دمانتين أصحابتي مeel kasta adduunka aa ka joogtiin ahlan wasahlan soo dhawaada kusoo dhawaada janalkiina maanta waxaan soo diyaariyay video marar badan la soo weydiiyay waxa way sida gacmaha iyo lugaha loo cayiliyo waxaan ku sameysanaynaa maanta videogeena mask iyo cream aad u fudud sahal guryaheena noo yaalan waxyaabaha aan ka sameysanayno marka walaalahayga qaaliga soo dhawaada marka hore inta ugu galin videoga like iyo share dhaha la wadaaga asxaabtiina insha Allah like tahay hilmaamina asxaabtayda qaaliga ee like muhiim ay noo tahay hadii aad nagu cusub tahay oo marka ugu horeyso oo channelka aan soo booqatay waxaan ku leeyahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow channelka subscribe dheh beelkana furo si videoyaasha aan soo dhigno aw aragtid insha Allah soo dhawaada walaalahayga qaaliga marka hore maskadan sameysanaynaa maskadan waxaan ka sameysanaynaa laba shay bas aan ka sameynaynaa insha Allah waxawaaye in qamiirkan waxaan isticmaalaynaa hal qaado oo qamiir iyo waxaan kaloo isticmaalaynaa in hal qaado oo caano booro labadaas shay bas aan ka sameysanaynaa biyo yar aan ku qasaynaa marka maaskada gacmaha iyo lugaha waxaan u isticmaalaynaa in qamiirkaas iyo caanahaas oo isticmaalaynaa xataa wajiga waa la marsan karaa yani waxaa u isticmaali kartaa wajiga gacmaha lugaha u isticmaali kartaa marka waxaan ku darsanay in wax yar oo biyo biyahaas aan ku qasanaynaa marka waxaa la rabaa inay si fiican u qasanto oo kuskus ay yeelanin yani waxaa la rabaa cream camal inay kusoo baxdo si sahal si aad ugu marsatid si fiican u qasaynaa qamiirka waxa way asxaabta ma sha Allah fitamiinada uu leeyahay iyo protein iyo macdan uu leeyahay qurxinta xageeda aad la isku qurxiyaa timaha waa loo isticmaalaa hadda kor waa soo hadlay timaha waa loo isticmaalaa maskada looga dhigtaa wajiga waa loo isticmaalaa jirka waa loo isticmaalaa ma sha Allah qamiirka waxa way faa'iido badan uu leeyahay ana ka waxaan isticmaalaynaa gacmaha iyo lugaha isticmaalaynaa hadii aad rabtidna wajiga waa u isticmaali kartaa gacmaha marka uu isticmaashid gacmaha waa ku caylinaya lugaha sidoo kale waa caylinaya marka ana ka maanta waxaan isticmaalaynaa lugaha iyo gacmaha isticmaalaynaa hadii markaas adigu wajigaaga uu caati yahay oo rabtid xataa wajiga inaad ku cayilisid wajiga waa u isticmaali kartaa aad iyo aad u fiican yahay marka ugu horeyso isticmaashidna waa iska arkaysaa yani isla markii isbedelku waa arkaysaa ma sha Allah hadda waa tanaa maskadii jaa-is ay noo tahay yani waxay kusoo baxday cream ay kusoo baxday waxaa la rabaa inaad si fiican u qastid si ay cream camal ay kuugu noqoto yani si sahal si aad ugu marsatid marka isticmaalkeedana waxa waaye marka hore lugaha iyo gacmaha soo dhaqaysaa soo nadiifinaysaa kadibna waa marinaysaa waa ku masaajeynay marka si fiican ugu masaajeynay si fiican oo marinay isku gaarsiinay waxa u sugaysaa marka ilaa ay ka qalalayso marka ay ku qalasho ka bacdi iska dhaqaysaa biyo caadi ah marka iska dhaqaysaa insha Allah kadibna waxa u isticmaalaynaa cream marka creamkana hadaan sameysanaynaa insha Allah creamkana waxa way cream oo lugaha iyo gacmaha loogu talagalay oo lugaha iyo gacmaha cayilinayo waxaan ka sameysanaynaa saddexdan shay waxa way vaseline xulba iyo saliid marka saliid waxa way saliid cuntada aan ku karsano iyo vaseline caadiga iyo xulba shiidan saddexdaas shay aan ka sameysanaynaa marka creamka marka hore digsigan dabka soo saarno waxaan ku shubanaynaa nus bakeeri saliid iyo waxa kale ku shubanaynaa laba qaado oo waaweyn oo vaseline marka waxaan ku kuleynaynaa dab gaaban aan ku kuleynaynaa waxaan rabnaa wax yarna isku dhalaalaan saliidda iyo vaseline-ka markay isku dhalaalaan kadib xulbada aan ku shubaynaa insha Allah dabka waxa fiican inuu aad u gaaban yahay si saliidda iyo vaseline-ka ay tartiib isku dhalaalaan insha Allah bas way hadana si fiican isku dhalaaleen waxaan ku shubanaynaa halka qaado oo xulbada hal qaado weyn oo xulba waaye oo shiidan xulbada intaan ku shubin ka horna dabkaan damiyay يعني سليد iyo vaseline markay isku dhalaalaan isla markii waxa way dabka fiican in la damiyo ka bacdina kuleelkaas yar lagu shubaya xulbada marka si fiican isku qasaynaa si fiican la rabaa in isku dhexgalaan isku qasmaan
xulbadan waxa waay asxaabta saa ogsoonahay waa lagu cayilaa cunitaan haddii la dhaho saliideeda marka la isticmaalayo wejiga loo isticmaalayo ama jirka loo isticmaalayo yani jirka way cayilinaysaa, wejiga way cayilisaa, maasha allah waay yani si caafimaad laha loogu cayilaa xulbada. iyadana waxa waay fitamiinaad badan ay leedahay, aad iyo aad u fiican tahay. marka maanta waxaan isticmaalaynaa kareem ahaan u isticmaalaynaa. saliidda marka saan ay tahay markii ay qabowdo waxay noqonaysaa sida kareem camal ay noqonaysaa, way fadhiisanaysaa. kareem ahaan u isticmaalaynaa insha allah. bas way hadda asxaabta saani jaa-is noogu tahay. marka dhaladaana soo diyaarsan aan ku shubanaynaa. waxaa u sugaynaa ilaa ay ka qaboobayso. markii ay qabowdo waxay noqonaysaa sida kareem camal ay noqonaysaa, way fadhiisanaysaa. kabacdi caadi u isticmaalaynaa insha allah. waatana markii ay soo qabowdane maasha allah waxay noqotay kareem oo sida vaasiliinka camal u fadhiyo, kaal iska aragay noqotay. isticmaalkan waxa waaye marka gacmaha iyo lugaha aan kasoo dhaqno maaskada kabacdi aan markaas isticmaalaynaa insha allah. lugaha iyo gacmaha marinaysaa, si fiican u marinaysaa, kadibna waa ku masaajeynay. marka waxaa la rabaa si fiican inaa ugu masaajeysid lugaha iyo gacmahaba. maaskada iyo kareemkaba maasha allah asxaabta labadaba si fiican ay u shaqeynayaan, yani maalin kastana waa la isticmaali karaa. marka ugu horeyso isticmaashiina isbedelka waa arkaysiin. haddii aad toos u wadiin oo toos u isticmaashiina yani natiijo fiican aad ka gaaraysiin insha allah. marka walaalahayga qaaliga ee waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad ka wada faa-iideen oo ka wada hesheen. baroobeeya, tijaabiya, isticmaala insha allah. aad iyo aad ugu wada heli doontiin. videoga like iyo share dhaha, la wadaaga asxaabtiina iyo ehelkiina insha allah. waxaan noo balan ee videoga dambe. waxaan idinkaga tegayaa fi amaan illah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.